fikraddiisa uu ka dhiibto oo uu aan wakhtiga lagu soo qorino la oran 5 daqiiqo saa la socotaan habraaca kan waxaan rabnaa dastuurkeenna oo ay caqabado waaweyn dul saaran yihiin mid siyaasi ah mid farsamo inaan ugu jidbixinno waddo aan qodax lahayn uuna gaarsiiyo xero aan qanin lahayn taasi waxay u baahan tahay habraac saxsan habraaca kan ilduuf badan iyo laaxin badan ayaa ku jira Soomaalidu horeyba u tiri laaxin alf wax male ka gala albaqar kaaga ma baxo kan amaanta hayno isagoo laaxina haddii saa ku sii deyno waxa weeye dastuurka weyn kagama shaqayn karno waa loo baahan yahay habraac inaan helo oo lagu shaqaynayo laakiin sida uu maanta uu ku qoran yahay wuxuu u baahan yahay kulli fikradda anigu aan qabo in wax badan laga qabto hadda u baahannahay inaan helo dastuur sax waxaan u baahannahay dib u heshiisiin bay Soomaali u baahantay markii dib u heshiisiin la helo waxa la helayaa dastuur sax oo dhameystiran inta hadda uga gudbo waxaan rabaa inaan galo doodayda qodobada waxaan soo jeedinayaa habraaca kan markuu ugu horeysa in la waafajiyo cutubka 15aad ee dastuurka ku meel gaarka qodobka saddexaad farqadiisa labaad ee xarafka a isna waxaan ku dari lahaa warbixinta ku saabsan nuxurka soo jeedinta wax ka beddelka in guddigu ay ku soo daraan qorshe hawleedkooda oo dhameystiran si hadhow ay noogu fududaato inaan la xisaabtanno shaqadii loo igmaday oo qorshe hawleedka hadduu sanad yahay hadduu 2 sano yahay inay ku soo daraan warbixinta nuxurka marka ay noo soo jeedinayaan si ay ugu fududaato goloweynuhu inuu kula xisaabtamo shaqada ay noo hayaan qodobka afraad marxaladda labaad ka doodista iyo wax ka beddelka dastuurka farqadiisa labaad qaraarkii soo baxay 27 bishii 7 2015 horta ma bahayno muddada aan joognay baarlamaankana xeerar badan ama xeer kasta isagoo soo qaadanaya xeer hore loo ansixiyay ama qaraar hore loo ansixiyay aan lifaaqdiisu aan aysan la socon baan loo keenaa wax badanna mudanayaashu way sheegeen guddoonka iyo waa loo sheegay iyaguna laguma soo daro maalin kastana waxaa loo keenaa qodobo ama sharci aan markaas nuqulkiisu uusan la socon oo waxa weeye iyadoo la rabay in la isla arkiyo oo loona fahmo marka qaraarkaas baarlamaan hore ayaa ansixiyay xaaladda hadda lagu jirana waa ka duwan tahay wacyiguna waa ka duwan yahay dowladnimadu waa ka duwan tahay 2015 meesha joognay maanta ma joogno marka waxaan oran lahaa in laga saaro qodobkaas qodobka afraad oo ah 10 daqiiqo in xildhibaanka lagu soo koobo isna waxa la qabaa xildhibaanadii hore xildhibaanka aragtidiisu waa isbedeli kartaa dooda isbedeli kartaa marka qodobkaasna in isaga meesha laga saaro waxaan kaloo qabaa isla farqadaas isla qodob in lagu daro farqad cusub oo leh warbixinta waa tan maanta doodeeda oo dhameystiran minute meetingkeeda 24 saac ka hor in la siiyo si aan u ogaano in doodayadii lagu soo daray in kale qodobka shanaad farqadiisa saddexaad isna waxa weeye tirada aad ay u badan tahay qodobka waxaan soo jeedin lahaa haddaad fiiriso golaha shacabka waa 45 xildhibaan marka aad bedesho 1/6 haddaad bedeshana sanatarada waa 9 xildhibaan marka halka waxaa moodaa in ay tiradu ay kala badnaanayso marka in lagu bedelo sida uu qabo xeer hoosaadka golayaasha labada gole qodobka afraad farqadda xarafka a qodobkan wuxuu ka hor imaanayaa xeer hoosaadka sida qodobka 88 waa qodobkii ahaa inuu guddoomiyuhu uu go'aan ka gaarayo mooshinka wax ka beddelka ay soo jeediyaan mudanayaashu marka qodobkaasna farqadda afraad xarafka ah in laga saaro ayaan soo jeedinayaa farqadda shanaad isla qodobka shanaad isna 50+1 ka ah wuxuu burinayaa qodobka 7 qodobka oo 2/3 marka in loo daayo
qodobkaas shanaad in meesha laga saaro oo 3 meelood meel laga dhigo qodobka uu ka hor imaanaya qodobka kale oo isagana kollay baarlamaanka la yaab ku noqday waxa weeye waa qodobka shanaad farqadiisa 7aad oo leh codayntu waxay noqonaysaa gacantaag qoraal magac yeeris waa la jifiyaa banaan weeye marka qodobka waxaan soo jeedinayaa in totally laga saaro oo laga dhigo cutub in lagu ansixiyo hab qarsoodi ah ugu dambeyntii qodobka 7aad iyo 8aad oo ka hadlaya aftid shacab sidii aftida loogu qaadi lahaa dastuurkeena iyo natiijada aftida in laga saaro sababtoo ah waxa loo baahnaan doonaa xeer uu baarlamaanku uu soo saaro kaas oo qeexi doona yaa codaynaya xagee laga codaynayaa see loo codaynayaa qofka Soomaaliga waa kee qodobka xataa wuxuu hadhow uu dib ugu noqonayaa xeerka jinsiyad aan wali la keenin waa kuma qofka Soomaaliga marka waa mahadsantiin intaas aan